wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad joogtaan muddo aada u fog kadib hawada ayaynu dib ugu soo noqonnay si rasmi ah waxaynu halkeenii kasii wadi doonaa muuqaaladii aan idiinsoo gudbin jirnay iyo sidoo kale dhacdooyinka iyo warbixinada kala gedisan ee maalinlaha ee ka dhaca dunida daafaheeda kala duwan. haddii aada nagu soo biirtay markaa ay kugu horeysay fadlan subscribe saara janalkan, sidoo kale subscribe ha ku ahdo, like ha ku ahdo muuqaalkan iyo muuqaalada dambe. mahadsanid. Lata Mangeshkar ayaa maanta ku geeriyootay Mumbai dalka Hindiya iyadoo 29 sano jir ah. waxay ahayd halyeeyad ku xeel dheer hidaha iyo dhaqanka Hindiga. waxay sidoo kale ahayd hanti qaran oo kusoo caanbaxday aflaanta Bollywoodka, inkastoo ay dhab ahaantii kasoo muuqatay shaashada filmaan faraku-tiris ah. dalka Hindiya waxaa ka socota baroordiiq aada u weyn oo loo sameynayo fanaanad weyn oo nus qarni ku jirtay howlaha fanka iyo suugaanta, isla markaana door firfircoon kasoo qaadatay aflaantii Bollywoodka ee aadka loo xiiseyn jiray. xidigtan sida qadiimiga loo tababaray ayaa caan ka noqotay fanka Hindiya sida xawliga ku socda, iyadoo noqotay heesaa oo codka heesaheeda inta badan sii jirtay jilayaasha aflaanta Bollywoodka muddada ay soo jirtay oo ahayd in ka badan nus qarni. muddo 10 sano ama 20 sano Lata Mangeshkar waxay ahayd fanaanada loogu doondoonista badan yahay wadankaasi, iyadoo atrisho kasta oo sarana ay dooneysay in ay qaado heesahooda ama ay matasho. dhanka kale waxay qaaday ilaa 30,000 oo heesood oo ka kooban noocyo badan, kuwa oo isugu jira 36 luuqadood. Lata Mangeshkar waxay ka dhalatay ama ay ku dhalatay magaalada Indore ee bartamaha dalka Hindiya 28 Sebtembar 1992. aabaheed waxa uu ahaa heesaa, jilaa, masraxyada gilgila iyo soo saaray riwaayadaha muusiga ee luuqada maradiga. waxa ay curad u ahayd 5 caruur oo la dhashay, iyadoo walaalaheed ay raaceen wadadii ay martay. sidoo kale waxay noqotay ama ay noqdeen fanaaniin caanka ah dalka Hindiya. wareysi lala yeeshay Mangeshkar waxay ku sheegtay in qoyskeeda ay ku caanbaxeen muusiga qadiimiga. weligeed waxbarasho toos ama aysan gelin. gabar shaqaale ayaa bartay alfabeetiga maradiga. wadaadka deegaankana waxa uu baray luuqad gaar ah oo loo yaqaano Sanskrit, halka qaraabada iyo macallimiinteeda ay guriga ku bari jireen maadooyin kale. xaaladda ayaa ku adkaatay kadib markii aabaheed uu khasaaray, kadibna lagu qasbay inuu xiro shirkadiisa tiyaatarka. qoysku waxay u guureen galbeedka magaalada Pune oo la yiraahdo Pune. kadib geerida aabaheed, qoyskeedu waxay u guureen Bombay oo markii dambe loo bedelay Mumbai. ugu dambeyn waxaa u suura gashay in ay wax ka jisho 3 filim oo maradi iyo hindi isugu jira sanadkii 1947. waxayna saameysay nolosheeda jilitaanka markii ugu horeysay aflaanta kala gedisan ee Hindiga, laakiin kuma aysan farxin. waxa ay ku luuqeysay heeso badan oo xusuusta galay. waxay sidoo kale muhiim ay ka qaadatay kaalin firfircoon aflaan caan oo ay kamid yihiin Pakizah, Majboor, Awara, Mughai, Ezam, Shri 420, Aradhana iyo Dilwale Dulhania Le Jayenge iyo aflaan aada u tiro badan. waxa ay u heesi jirtay ajrisho kasta oo dumar ah, laga soo bilaabo Madhubala 1940 ilaa Kajal 1990, iyadoo oo garab ay taagnaayeen fanaaniin caan ah oo ay ku jiraan Mohammed Rafi, Kishore Kumar iyo sidoo kale Kumar Sanu, Udit Narayan iyo fanaaniin aada u tiro badan oo ay la soo heshay. sidoo kale waxay la shaqeysay agaasimayaasha Bollywoodka hormuudka ka ah sida Raj Kapoor iyo Guru Dutt ilaa Mani Ratnam iyo Karan Johar. waxay sidoo kale heesa la qaaday walaasheed oo heesaa kale oo hormuud ah, isla markaana la yiraahdo Asha Bhosle, iyaduna oo ka fogaanaysa wax calaamad oo muujinaysa xifaaltanka walaalaha, inkasta oo ay markaasi xirfadahoodu isku mid ahaayeen. Mangeshkar waxa ay haweeney aada u karti badan si ay ula tartanto fanaaniinta ragga ee ugu sarreeya sida Mohammed Rafi. mar la weydiiyay heesaheeda caanka ee Bollywoodka ay Mangeshkar sheegtay in ay aada u badan yihiin heesaha jacaylka. waxay ku raaxaysatay dhageysiga heese aada u tiro badan. waxaa kale oo ay aada u jecleed in ay daawato filimada Bollywoodka. waxay si gaar ah zaaid u jecleed filimka The King oo ay sheegtay in ugu yaraan ay daawatay 15 jeer. waxay sidoo kale jecleed filimada James Bond iyo filim kale oo markaasi aada u xiiso badnaa. baabuurtu waxay ahaayeen dareen kale waqtiyo kala duwan oo nolosheeda. waxa ay lahayd Helman Kowlan iyo baabuuro aada u badan. Mercedeska guriga waxa ay lahayd 9A iyo alaabo aada u badan.
Mangishkar waxay taageeri jirtay ciyaaraha cricketka ee aadka u adag, inta badanna nasiino ku qaadan jirtay duubista ay usoo daawo tagto amaba intooda badan ay usoo daawasho tagto ciyaaraha. Waxa ay xiiseyn jirtay cuna karinta iyo sawir qaadida, waxayna aada u isticmaali jireen kaamirada Rolleiflex. Fasaxyada Mareykanka ay u jecleed gaar ahaan Las Vegas. Tani waxay u ekaan kartaa wax la yaab leh, laakiin marka aan fasax ku booqan jiray Mareykanka waxaan jeclaa in aan waqti ku qaato Las Vegas ay mar sii horeysay tiri. Waa magaalo aad u xiiso badan, runtii aad ayaan ugu riyaaqay ciyaarta mashiinada habeenkii oo dhan. Waxaan ku qaadan jiray mashiinada ciyaarta, aad ayaan u nasiib badanahay oo waxaan ku guuleystay marar badan. Sanadkii 1997 waxa ay noqotay Hindigii ugu horeeyay ee bandhig faneed la sameeysta kooxda orchestra wareen ka dhaca hoolka Royal Albert. waxa ay ila tahay bay tiri in farxad lala wadaago adduunka, murugaduna waa inaad naftaada ku koobto. Mangishkar ayaa mar sidaasi tiri. muusigeeda aan weligeed laga heshiis dhicin ayaa runtii farxad u horseeday malaayiin hindi ah sida Nazreen Muniq Kabir ay tiri waxayna noqotay boqorada codka. haddii halkan aynu kasoo qaadano mid ka mid a heesaha ay ku luuqeysay fanaanada kuwooda caanka, wax ka mid ah hees ku jirtay filinka Dil To Pagal Hai oo iyadu ay markaasi heeskaasi ay la qaadisay fanaanka caanka ee Udit Narayan, iyo hees ku jirtay filinka Muhabbatain ee Shah Rukh Khan iyo atoorayaasha kale kaasi oo iyaduna dhowr heesood ay ka qaadisay sida Humko Humise Churalo.